Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Saraakiil Guud Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka taliyayaasha talisyada sirdoonka ee wadamada ku mideysan Ururka Bulshada Bariga Afrika, kaas oo soconaya 29 ilaa 30 bishan. Shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladaha amni ee wadamada Bariga Afrika iyo guud ahaan gobolka, iyadoo la isla falanqeynayo caqabadaha jira iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada sirdoonka. Mas'uuliyiinta ka qaybgalay shirka ayaa la filayaa inay si qoto dheer uga wada hadlaan khataraha amni ee sii kordhaya oo ay ka mid yihiin argagixisada abaabulan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa khudbadiisa kaga hadlay xaaladaha amni ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka, isagoo muujinaya muhiimadda ay leedahay iskaashi dhow oo dhinaca sirdoonka ah. Sidoo kale wuxuu xusay horumarka laga gaaray dib u habeynta iyo soo kabashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo amniga dalka. Taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay in wadamada gobolka ay u baahan yihiin inay si wadajir ah uga hortagaan khataraha amni ee isa soo taraya. Saraakiil Guud Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay wafuudda ka soo qayb gashay shirka, isagoo u rajeeyay inuu noqdo mid miro dhal ah oo laga gaaro natiijo wax ku ool ah.